kulanti wanaagsan meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka ogaalka dunida ee asbuucan waxaan ku eegi doonaa taariikhda degmada Godob Jiiraan iyo sababtii ka dambeysay asaaskeedii iyadoo halkani ay markii hore ahayd deegaan beeraleydu ay degtay kadibna isu bedeshay magaalo kamida magaalooyinka ugu waaweyn gobolka Nugaal. burburkii markuu dhacay baadidoonkii qarannimo halkii laga bilaabay soo baytisaa tahay boqol sano ku dhawaad xilli lagu qiyaasay inay ka soo wareegatay ayaa la sheegay in la ogaaday in deegaanka ay ku taalo degmada Godob Jiiraan ee gobolka Nugaal inuu ku habboon yahay dhul beereed xilli roobaadka waana sababtii ka dambeysay asaaska magaaladan sanadkii 1945 baa waxaa bilaabatay sahamin ah inuu ku habboon yahay dhul beeraad marka lagama rajo qabin inuu noqon karo dhul deegaan marka loo dhaaqo dhanka deegaanka 1970kii baa barkadii ugu horeysay waxaa ka qoday Salaad Axmed Guuleed Salaad Timir gudoomiyay ugu horeeyeen ahaa 1970kii bay deegaankii ugu horeysay asaaskii ugu horeeyay uu ka asaasmay aniga wax la yiraahdo Qaasim Cabdi Yuusuf waxaan ku dhashay magaalada Godob Jiiraan 45 sano jira Godob Jiiraan taariikhda aan dhashay bay asaas ahaan degtay Godob Jiiraan baal asaaska magaaladani waxay bulshadii deegaamaysay ay dhibaato ku qabeen helitaanka biyaha dhismaha ee magaalada ay ku dhisayaan waxaana qaar ka mid ah bulshada degmada Godob Jiiraan ay sheegeen in dhismayaashii ugu horeeyay biyihii lagu dhisay in laga soo dhaamiyay degmada Jariiban ee gobolka Mudug ama aaga degmada Ayl oo qiyaastii 70 kiiloomitir u jirta halka ay ku taalo degmadani walaal sida u jeedidba gurigan hadda dhacsan waa 45 sano gurihii la bilaabay oo magaalada Godob Jiiraan asaaskeeda ahaa oo mudnaa hore ariishkii guriyaha waqtigaas jiray gurigan ba kamid ah maxaa lagu dhisay guriyaha marka guriyahan waxa lagu dhisay biyihii lagu dhisay waa badnaayeen Jariiban iyo Ayl labadaas wuxuu ahaayeen biyo ugu sokeeyay waxa u raacay dhaan awrta geela awrta ceelasha badeed biyaha laga soo dhaansho baa lagu asal ahaan lagu unkay magaalada Godob Jiiraan asaas ahaan meeshan waxaan jira dhul oomasoora ah dhaanka halka ka taga dhaganle iyo bad iyo Jariiban biyo aan ahayn ma lahayn jirin meesha saakan haba dhanaanaadeen baraaga iyo wax baa ka muuqdo horumar baa dareemaysa in laga sameeyay aqda hawdkan halka nooga bay ilaa garow ka sokay wax dagi jiray reer cidla ama ah lama arki jir libaaxa rag halkan ku wada dhameeyay dadka tan intuu yimaado badda u dhaadhacay soo biyo doon libaax lagu arki jir hadda carad waa fiicnaatay baabuur goorti la arkay baasin baa u reeyay iyadoo la yiraahdo arki jir haddana 40 baabuur tuula dhexdeed waa laga leeyahay horta sidoo sheegay ninkaas wadankaas uu ahaan jiray oo masoora xun buu ahaan jiray waxaan ka joogno haraadkaas iga jiray nima Soomaaliya baa waxay noo keeneen riig soondaan noo keenay waa Soomaali waa garaacay laba sare garaacayeen hadday laba sare garaacayeen oo waa la biyo gaaray هذا دبا دقلاب ونقضيو ساسو دبا دقلادو wax gaban ka soo bijirado dhowr sano lagu rafaaday magaca Godob Jiiraan ayaa la sheegay inuu ka horeeyay magaalada oo halkan uu deganaan jiray sheekh lagu magacaabi jiray Jiiraan Koombe waxaana wali degmada ku yaala goobo asaartii dhismayaasha sheekha oo wali ka muuqda oo ay ka mid yihiin gurigii uu deganaa iyo masaajidkii uu ku cibaadeysan jiray Jiiraan Koombe ayaa la qiyaasayaa inuu halkan deganaa qarniyo badan ka hor magac leeyahay Godob Jiiraan la yiraahdo wuxuu ahaa magac soo yiil buurta aan fadhino waxa ku aasan ama deegaan ahaan lagu tilmaamay awoowe
jiraan kombe taaladan kaliya maaha masaajidkii waa kana ku tukan jiray baytullah masaajidkan waa masaajidkii ku tukan jiray oo baytullah markaa uu jiray weeye oo awow meeshan taalada ka samaystay taariikh sidaa ku maqlay magaaladu 45 sano bay dhisantay qiimo badan badlaane burburkii markuu dhacay